السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكتدا وضياشنا قيمها يقايا نقمض ميل الباجوكتان وحد كسر دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحن كبر الدورنا قاب كان كاغا يوتيوب كله قصة مايو channel art قروح بدن سودو مركل الدعوة طبعا سيان أسمينو channel art إسلا مركان كان أنو أسمينو باقلون عجيبة marka hore waxaad u baahan tahay inaad soo gasho browserka aad ka isticmaalaysa internetka kadibna aad soo gasho qaybta loo yaqaan Google kadib qaybta kore ee searchingka waxaad ku qoraysaa magaca website-ka oo ah snappa.com kadibna waxaad leedahay enter طبعا halkan waa wajhada hore ee website-ka waana halka ugu horeysa aad arkaysa marka aad website-ka soo gasho gudihiisa haddaba si aan u samaysano channel art qurux badan marka hore waxaa loo baahan yahay inaan isdiiwaangelino dabcan website-kan waa website free ah isla markaana macmiilka ogolaanayo inuu isticmaalo balse marka aan la degayno channel artigeena wuxuu noo ogol yahay bishiiba inaan 3 jeer la degno waxyaabaha aan abuuranay haddaba si aan gudaha u galno waxaad imaanaysaa qaybta ay ku qoran tahay get started free halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadib foomkan ayaad buuxinaysaa qaybta koowaad ku qoran tahay your name waxaad gelinaysaa magacaaga qaybta labaad ku qoran tahay your email address-na waxaad gelinaysaa dabcan email-kaaga qaybta saddexaadna waa password dabcan password-ka halkan aad gelinayso waxa aad u fiican inuusan noqonin midka saxda ah ee email-ka aad isticmaasho balse aad samaysto password ku gaar ah oo aad ku soo gasho account-kaaga kaga samaysan website-kan Snappa saddexdan qayb marka aad soo buuxiso waxaad imaanaysaa qaybtan hoose ee ku qoran tahay I am not a robot halkaas laba jibaaranaha ayaad jugsiinaysaa kadib wuxuu ku halkan ku soo saari doonaa tag cagaaran tagtaas marka ay ku fuusho waxaad leedahay get started free daca marqar waxa dhici karta inuusan si dhaqsi ah tag kugu saarin isla markaana laga dalbado in sawiradaas aad isku aadiso daca marka aad ka shaqeysid sawiradaas waxaad leedahay verify kadibna halkan tag ayuu ku soo saarayaa ugu dambeyn waxaad ku dhufanaysaa get started free balse haddii aad hore isku diiwaangelisay isla markaana website-kan aad ka samaysatay account kaliya waxaad leedahay login kadib halkan waxaad gelinaysaa email-kii iyo password-ka isku diiwaangelisay kadibna waxaad leedahay login dabcan iminka waan isdiiwaangelinay email-keeni iyo password-keena waana loo keediyay isla markaana waxaan noqonay macmiil toos ah haddaba si aan u samaysano channel art waxaan haysanaa laba doorasho tan koowaad waa inaan raadinaa YouTube channel art kadibna aan doorano isla markaana wax ka bedelno ama aan abuurno mid cusub ama waxaan samayn karnaa in halkan qaybta kore aan geeyno cabirka saxda ah ee channel artiga oo ah balac iyo joog pixel ah balac waxaan ka dhigaynaa 2560 pixel halka joogan aan ka dhigayno 1440 pixel kadibna waxaan leenahay create dabcan qaabkan oo abuuri karnaa channel artigeena balse habkan waxaa ka fudud habkii hore kaas ayaana isticmaali doonaa marka dib uga laabo kadib hoos u soo rog waxaad imaataa qaybtan hoose ee ku qoran tahay YouTube channel art ku haysanaa laba doorasho oo ah in mid cusub aan abuurano waliba inaga oo ka bilaabayna eber taa macnaheedu waa in hindisaha iyo naqshadaynta channel artigan uu inaga naga soo maahdo ama in mid diyaarsan oo website-kan ku jira aan wax ka bedelno bal marka hore aan tijaabino kuwa diyaarsan tusaale kan oo kale ayaan rabaa inaan tijaabiyo oo aan wax ka bedelo marka isaga ku dhufo kadib qoraalka dul tag kadibna 2 jeer click see kadibna waxaad gelisaa qoraalka aad u rabto kadibna waxaan gelinayaa magaca kanaalkayga oo ah Samaan TV tana qaybta hoose imaaw sidoo kale 2 jeer click see kalarka ayaan rabaa inaan ka bedelo midabka jaalaha dushiisa ku dhufo kadibna waxaan ka dooranayaa midab cadaan ah sidoo kale waxaan rabaa farta cabirkeeda inaan kordhiyo marka halkan imaaw ay ku qoran tahay 33 oo afarta iminkaan isticmaalno cabirkeeda oo afar yar yar halka kore ku dhufo si cabirka uu noogu bato dabcan qoraalkan waad qaadan kartaa oo meesha rabta aad geysan kartaa marka hadlaad saar waxna ka bedel intaad rabina waad tiri kartaa dabcan iminka waan dhameynay channel artigeennii quruxda badnaa waana samaynay inagoona howl badan gelin waqti badanna uusan naga lumin habkan waa habka ugu fudud ee channel art loo samaysto
kadib waxaad leedahay download si aan ula degno isla markaana aan computerkeena ugu shubanno. waxaan leenahay download, halkaas kore ku dhufo. kadib waxaad ka doorataa qaybta ay ku qoran tahay Retina JPG, halkaa jugsi, kadibna si toos ayuu kuugu degi doonaa. kadib isaga bax. markaana waxaan rabnaa inaan tijaabino qaabkii labaad oo ah inaan gacanteena ku samaysano mid aan anagu hintisnay. waxaad ku dhufataa qaybtan balaaska ah. dabcan sida halkan kaaga muuqata goobtan weyn ee madow waxaad arkaysaa in qaybtan ay u qaybsantay 3 qaybood oo kala ah. qaybtan oo ay ku qoran tahay TV only area marka laga fiirinayo TV. qaybtan dhaxana waa qaabku channel artiga ugu soo baxayo desktop ama tablet. dabcan qaybtan cadna waa sida uu ugu soo muuqanayo channel artigaaga marka laga isticmaalayo telefoonka. haddaba si aad u bedesho backgroundkaas weyn ee ka dambeeya qaybtan cad, waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay background, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. background marka aad soo gasho wuxuu ku siinayaa 4 qayb ama 4 doorasho. qaybtan koowaad ee photoska ah waa sawirro ku diyaarsan halkan isla markaana aad isticmaali karto. kadib waxaad imaataa qaybtan ay ku qoran tahay patterns. dabcan halkaas waxaa ku jira backgrounds qurux badan, marka midkii aad doonto ayaad ka dooranaysaa. tusaale hadda waxaan rabnaa inaan ku tijaabino midkan buluuga ah, kaa noogu dhufo. dabcan waa aragtaa iminka midabkii backgroundkan isbedeltay marka uu noqday buluug. qaybtan dhexe ee cabirka teleefankana midabkeedu uu noqday buluug saafi ah. dabcan markaan waxaan rabnaa inaan halkan soo gelino qoraallo. waxaad imaanaysaa qaybtan ay qoran tahay text, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad dooranaysaa qoralladan mid ka mid ah. marka uu sidan qoraalka kugu soo baxana qoraalka dushiisa imaaw, kadibna 2 jeer ku dhufo. kadib halkan waxaan ku qoraynaa kanaalkeena magaciisa oo ah Samaan TV. cabirka ayaan ku dari doonaa, midabka nooga bedel. mar kale ayaan ku dari doonaa qoraal cusub. dabcan markaan waxaan rabaa inaan bedelno farta nooca ay tahay. marka halkan imaaw, falaarta hoos u jeedana ku dhufo, kadib farta aad rabto dooro. dabcan imanka waxaan rabaa qaybtan yar ee buluuga ah in midabkan xoogaa wax ka bedelaysa, markaana qaabka ku soo baxayo xoogaa yar aan ka duwan sida imanka uu yahay. waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay effects, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. kadib ranadan hoos kuugu yaala sida darken iyo blur, saturation iyo brightness iyo contrast, kuwaas wax ka bedel. dabcan qaybahan markaas waxay bedelaan backgroundkaaga qaabka ku soo baxayo, marka tijaabi qaabkan ilaa aad ka hesho background qurux badan. dabcan qaybtan kale ee loo yaqaan graphicska iyana waxaa ku jira waxyaabo badan. dabcan qaybtan loo yaqaan icons. dabcan halkan waxaa ku jira icons iyo sawirro yaryar oo aad u isticmaali karto inaad ku qurxiso backgroundkaaga. sidoo kale qaybta factorskana waxaa ku jira qaab badan, kuwaas oo kuu suurtagelinaya inaad wax ka bedesho backgroundkaaga. dabcan midka aad ka hesho ayaad dushiisa imaanaysaa, waad ku dhufanaysaa 1 jeer. kadibna waxa uu ku soo biirayaa qaybta channel artiga, kadibna cabirkiisa ayaad iska saxaysaa. dabcan sidaas ayaad u isticmaali kartaa, marka aniga uma baahni. haddii aad u baahantahay inaad iska saartana waxaad ku dhufanaysaa sanduuqaas kore ama backspaceka keyboardkaaga ayaad taabanaysaa, kadibna wuu tirmayaa. dabcan qaybtan saddexaad ee photos kana tirsan graphicska waxaa ku jira sawirro halkan lagugu diyaariyey isla markaana aad isticmaali karto, una adeegsan karto inaad wax badan kaga bedesho backgroundkaaga iyo qaabka uu ku soo baxayo. bal marka hore aan tijaabino. ku dhufo 1 jeer, kadibna cabirka iska sax. dabcan qaybtan afraad ee loo yaqaano upload kana tirsan graphicskana waa in aad sawir soo geliso qaybtan adigoo sawir ka soo qaadaya telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga. marka halkaa ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa upload an image. kadib sawirka aad rabto halka in lagu soo geliyo dooro. kadibna sawirka 1 jeer ku dhufo, kadibna cabirkiisa iska sax adiga oo geesaha adeegsanaya hadba cabirka aad rabto ka dhiganaya. marka sidaas ayaan hawsha ku wadi doonaa insha Allah. marka si uu muuqaalka nagu dheeraanin waxaan rabaa marka inaan soo koobo isla markaana shaqada aan ka dhigay mid boobsiisa, maadaama iminka aan soo sharaxay waxyaabihii aan qaban lahayn. haddana waxaan rabaa si practic ah inaan u sameeyo weliba aan boobsiiyo. dabcan inta aan iminka soo sharaxo kale ayaan rabaa in halkan aan ku sameeyo, marka ala soco insha Allah.
طبعا marka aad dhamayso hagaajinta iyo qurxinta background-kaaga ama channel art-kaaga waxaad u fiican inaad halkan ku save garayso markaana aad kaysato marka waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taala save halka jugsi dabcan iminka channel art-ga waan loo keediyay markaana halkan ayaan loogu xafiday dabcan haddii ay dhacdo in channel art-gaas uu naga lumo ama aan weyno ama computerkeena uu ka baxo halkan ayaan ka heli karnaa isagoo sidiisa noogu diyaarsan marka si aan u degno waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taal download halka jugsi kadibna waxaad ku dhufataa qaybta ay ku taalo Retina JPG 2x size dabcan iminka waa uu noo degay si aan u hubinno isla markaana u aragno halka uu noo galay waxaad imaataa sawirka dushiisa falaarta kore jugsi kadibna ka dooro show in folder dabcan waa kan iminka halkan ayuu noo soo galay haddaba channel art-ga aan sameynay si aan u soo gelino kanaalkeena waxaad marka hore soo kicisaa YouTube-ka kanaalkaagana soo fur dabcan kanaalkeena waa kana iminka wax channel art uu leeyahayna male waana sidii aan ku abuurnay haddaba waxaa jirta laba hab oo kala duwan oo channel art-ga lagu soo geli karo kanaalkaaga tan hore waa inaad gujisaa oo aad doorataa halkan ay ku taalo customize channel kadibna uu kugu soo xiro channel customization ama inaad dul tagto sumadda kanaalkaaga kadibna aad ku dhufato oo aad ka doorato qaybta ay ku taala YouTube Studio kadib hoos u soo rog qaybtan waxaadna ka doorataa halka ay ku taala customization ugu dambeyn aad sidaas ku timaada qaybta loo yaqaano channel customization dabcan labada habna waxay aad u fudud habkii hore kaas ayaan isticmaali doonaa marka dib ugu laabo kanaalkaaga mar kale soo gal customize channel kadib qaybtan channel customization waxaad ka doorataa branding halka ku dhufo hoos u soo rog waxaad imaataa qaybtan ay ku taalo banner image dabcan halkan waxaa lagugu soo bandhigay 3 sawir calaamadda cas ee gaduudka ahna waa dabcan channel art-ga qaabka ugu soo muuqanayo haddii laga daawanayo computer haddii laga daawanayo TV ama haddii laga fiirsanayo mobile-ba sidaas ayuu ku soo bixi doonaa marka si aan u soo gelino channel art-geena waxaan ku dhufaynaa qaybtan ay ku taalo upload halkaas ayaan jogsiinaynaa kadib waxaan raadinaynaa oo aan dooranaynaa channel art-geena kadib waxaan leenahay done ugu dambeynna waxaan leenahay publish intaa kadibna waxaad leedahay view channel halkaa ku dhufo dabcan channel art-gana innaga ayaan gacanteena ku sameynay qaabkan ayuuna ku soo baxay isla markaana sidan ayuu qof kasta ugu soo muuqanayaa soo boqo channelkeena haddaba markaan waxaan rabaa inaan tijaabino channel art-gii bilowga hore aan sameynay ee kaliya wax yar aan ka bedelnay waxaan rabaa inaan fiirino qaabka ugu soo baxayo kanaalkeena marka customize channel dheh kadib qaybtan channel customization waxaad ka doorataa branding halkaa ku dhufo hoos u soo rog waxaad imaataa qaybtan ay ku taalo banner image kadib qaybta banner image waxaad ka doorataa change kadib waa kan ahay ku dhufo ugu dambeyn waxaad dhahdaa done kadibna publish ugu dambeynna view channel dabcan waana kanal channel art-geena koowaad ee aan abuurnay qaabku u soo baxay isla markaana uga soo muuqday kanaalkeena dabcan waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad ka faa'iiday isla markaana aad ku baratay qaabka loo sameeyo channel art qurux badan fadlan subscribe-ku waa codsi like-na waa ka helid share iyo comment-na waa xaggaaga